السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اللذن وهذا الله مرتئة وقيمة بدن أقونت وي هذا الشاء مرتدنا وحبي دقيستا هذا بدأ وذا وحن كلية هاي سيد الجرك أو كله أي مسكح ذو داشا أي كنا سي وراه يدا حكمة له هذا اللذن مرتدة أهي وحن أقاضى ريق دونا سيدان أفهمي هذا الكعكسيجي وحاجرة kuwa badan oo aanan fahmin aniga waxaan fahminna kama bahadlo waxaad fahmin inaad dhahdo ma fahmin oo garan maayana intaasi waa cilmi waxaan fahmin sideen ooga hadlaa laba qaawan isma qaado murtideena koobaad waxay leedahay ninka la taliya qof aan taladiisa daneenayn isaga qudhiisa ayaa talo u baahan waa sax bal ka waran qof hadaad dhahdo waan la talin oo isagana dhibsanayo hadalkaad sheegayso inuu dhageysto iyo inuu qaato iska daay marka adaa u baahan in lagu la taliyo oo lagu dhaho ninka tala kaaga ma baahnee iska daa in sida lagu la taliyo adiga u baahan fiiri qofka jirkiisa dhaqdhaqaaqiisa hadduu mar hareeraha fiirinayo marna telefoonka fiirinayo hadalkana uusan kula wadin qofka talo kaaga ma baahnee adaa talo u baahan sidaa darteed ninka la taliya qof aan talidiisa danaynayn isaga qudhiisa yacni laftirkiisa ayaa talo u baahan kama xanaaqsani in aad been ii sheegtay waxaan ka xanaaqsanahay hadda laga bilaabo in aan ku rumaysan karin maxaa yeelay beenta haddii aad iga qariso oo aad dhulka ku aastid way soo bixi doontaa xasanul basri wuxuu leeyahay dunida hadda ku gado dunida dambe labada duniba waad heli mirahooda balse dunida dambe ha ku gadanin dunida maanta labadaba waad waayi doontaa ibnu kathiir allah u naxariistee wuxuu leeyahay qofka aadanaha ahi waxa uu ku noolaadaa saddex daarood kow adduunyada laba qabriga saddex qiyaamada sidaa darteed ayuu xasanul basri u leeyahay dunida hadda ku gado dunida dambe yacni qiyaamada haddii aad ku gadato waad heli mirahoodee labadaba sidaa darteed ayuu alle subxaanahu wa tacaala qur-aanka ku leeyahay man camila saalixan min dakarin aw unthaa wa huwa mu'min falanuxyiyannahu xayaatan dayiba ciddii camal wanaagsan fashaa oo raga ama haweena isagoo mu'mina waxaan noolaynaynaa nolol wanaagsan fi dunya wal aakhirah aakhiri adduunba balse dunida dambe ha ku gadanin dunida maanta labadaba waad waayi doontaa alla quraanka wuxuu ku leeyahay suuratul baqara suurada labaad aayadda 86 ulaa'ika alladhiina ishtaraw alxayaata ad-dunya bil aakhirah فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون كواسنا وكوا كوغتي نولش الدنيا ايدو آخره لغمنا فضي حقوضا عذابك لو منا غرغارو آيادا وحي عنانا iyo aayadaha ka horeeyaba ruux kasta oo aan xaq suuyahay ugu dhaqmin ama yahuud ha ahaado ama cid kale ha ahaadee برنامجكن انت سنكسو قتميا انت بان إنا إذن لو ذاقو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.